ameen dhibaato bini'aadan uu sameeyay bini'aadamku uu sameeyay sheekadan waxay ku saabsan tahay soo socotay gabar Soomaaliyeed waxaanu bedelnay magaceedii iyo muuqaalkeedaba waxaana ka waramaysa qof iyada jilaya si aan loo aqoonsan waxaa la ii guuriyay nin i garaaci jiray anigoo 15 jir ah aabbahay ayaa iga furay aabbahay ayaana i caawi jiray balse al-shabaab ayaa dishay alxamdulillah waxaan la kulmay maxamed mar labaad ayaan guursaday isla al-shabaab ayaa afduubatay maxamed ilaah mahadiisa uu ka soo fakaday laakiin Soomaaliya maan sii joogi karin kismaayo ayaan ka soo baxsanay Boosaaso ayaana nimid kadib Yemen ayaan doonu raacnay Yemen waxaan kula kulanay nin Soomaali ah wuxuu noo sheegay inuu nageynay xerada qaxootiga ee qaramada midoobe af Carabi kuma hadalno maadaama uu Soomaali yahay waan aaminay wuxuu noqday dambiile wuxuu naga iibiyay kuwa dadka ka ganacsado kuwaasoo naga dalbadeen $4,000 oo madax furasho ah lacagtaas maana woodin marka sidii xoolihii ayuu nooga gaday nin dadka tahriibiyo oo Suudaaniis ah kaasoo isagana naga iibiyay nin Liibiyaan ah ninka Liibiyaanka ah ayaa isagana mid kale naga sii iibiyay sidaas ayaana bani waalid ku nimid waxaan hal qol ku ahayn ku dhawaad 1,000 qof way garaaci jireen kufsi ayay iigu hanjabeen iyo inay xubnahayga igala baxayaan arxan daradooda ma qiyaasi karaysid maalinkii meelaha markay socdaan dumarka ayay ul dhanka dambe uga dhuftaan usha marka lagu dhufto macnaheedu waa in la doortay nimankooduna way fahamsanayeen laakiin waxba maysan ka qaban karin gabalku markuu dhaco way soo noqonayeen dumarkay usha ku dhufteen ayay qol kala geysanayeen kadibna way kufsanayeen habeenada ka mid ahse kuwiina haysay dhexdooda ayaa xabad isku bilaabay ilaahay mahadiis waan ka soo baxsanay waxaan awood u yeelanay inaan doon ka raacno oo ugu dambeyn ka tagna dhibaatadaas waxaan doonta ku saarnayn 140 qof aad ayaan noogu faraxsanaay waxaan ku ducaysanayay inaan meel nabad ah tagno waan ogaa waxa ugu xun ee dhici kara inay tahay geeri balse geerida ayaan ka doorbidayay Liibiya kadibse shidaalka ayaa naga dhamaaday ciidamada ilaalaha xeebaha Liibiya ayaana qabtay doontooda inaan korno ayay nagu qasbeen gawaarida ciidanka ayaa dekada naga kaxeeyay waxayna geeyeen waxaan ku tilmaami karaa xabsi oo lagu magacaabo xarunta taariikh al-Sika waxaa qol yariis ah la igula xiray 50 haween iyo baaldi si aan ugu xaajoono bahdilaad daran ayay ahayd runtii cunto nagu filan maynan haysan biyo lacabo iska badaaye dad badan ayaa la xanuunsanaa cudurka qaaxada qaar ayaana dhabteeda ku nafbaxay waa lay garaacayay waxaana lagu cadibayay koronto waqti ayaa ka soo wareegtay waxaana loo sheegay in tookada soo socto aan bixi doono marka liiska magacyada cusub la soo dhajiyay maxamed baa igu yiri orodoo soo eeg balse magacyadeenu kumaysan jirin waxay ahayd inaan u sheego in mar kalena laga tagay dad badan oo naga soo dambeeyay ayaa horteen baxay maxamedna caro iyo wareer ayaa isugu darsamay waxay ahayd maqribadii oo kale markay dhacday maxamed markii aan arkay wuu gubnaa waxaa la ii sheegay inuu petrol isku shubay kadibna uu dab isku qabtay qof ka socda ciidamada Liibiya ayaa igu yiri maxamed geeridiisu Allah ayaa qoray waa inaad aqbashaa oo noloshaada sii wadataa
isla xabsigaas ayay igu hayeen ilaa iyo 3 bilood kadib geeridiisii